My honor to introduce His Excellency, the President of Somaliland, Muse Bihi Abdi. Sir. madaxweynaha Somaliland oo khudbad ka jeediyay macadka Heritage Foundation ee magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka ayaa waxa hadalkiisa uu ku bilaabay waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadnaqo oo aan bogaadiyo Dr. Kevin Roberts oo ah madaxa hay'adda Heritage Foundation oo igu marti qaaday inaan halkan khudbad ka jeediyo maanta. I would like to extend my sincere gratitude and appreciation to Dr. Kevin Roberts, President of the Heritage Foundation. Hay'adda Heritage Foundation waa mid ka mudhay ama ka dhex muuqata hay'adaha dhigeeda ah ee ugu horeeya America. Stands out among the America's leading public policy institutions to promoting a truly kuwaas oo ka hadla siyaasadda dawliga ah ee ku hawlan in kor loo qaado in hab isku dhafan oo dhab ah loo horumariyo siyaasadda iyo dhaqaalaha bariga Afrika. It is therefore a great pleasure. Waxaa farxad weyn ah in aan maanta aan isdhaafsano aragtiyo ku saabsan Somaliland iyo mustaqbalka dimuqraadiyadda oo aan la wadaago ka soo qaybgalayaashan kala duwan. mudanayaal iyo marwooyin maanta adduunka oo dhan waxa uu diiradda saaraya oo isha uu ku hayaa musiibada ka dhacday Ukraine. Focused on the tragedy in Ukraine. duqeymaha cirka iyo dhulkaba ah ee halkaasi ka socda. The bombardment, the destruction, dhimashada, the death, dhibaatada baaxadda leh iyo mushkiladda qaxootiga ee Yurub soo food saartay. Crisis in Europe since the World War II. Today, maanta the suffering of the people of Ukraine, dhibaatada dadka reer Ukraine haysata adduunka oo dhan ayaa daawanaya. taasoo warbaahinta rasmiga ah iyo baraha bulshadaba lagala socdo wararka 24 saacadood usbuuc walba. With the help of the 24/7 news cycle and the social media. Annaga dhibaatadan Ukraine For us as Somalilanders, waxayna xusuusinaysaa xasuuqii loo geystay dadkayaga of the genocide committed against our people 33 years ago. 33 sanadood ka hor. A tragedy I myself witnessed firsthand. masiibo aan aniga laftayda u soo taagnaa oo aan goobjoog ahaa iyadoo in ka badan 50,000 oo ka mid ah dadkayga lagu xasuuqay gacanta dawladda Soomaaliya. 50,000 of our people were massacred in the hands of Somalia government at that time. in ka badan 1 milyan oo shacabkayga ahina ay barakaceen. waxaan dareemaynaa xanuunka iyo murugada ay dareemayaan dadka reer Ukraine maanta sababtoo ah waxaan soo marnay khibradaasi la mid ah. That the people of Ukraine feel today because we went through the same experience. nasiib xumo xasuuqii loo geystay dadkayga waxa uu ahaa mid adduunka laga qariyay maadaama xilligaas aanay jirin warbaahin daahfuran oo ka warranta sidoo kale ma jirin baraha bulshada ee maanta jira. Was hidden from the world as that time there were no 24/7 days news cycle and the social media. However, ha ahaatee xasuuqii qaraaraa ee aanu soo marnay waa mid maskaxdayada ku xafidan oo aan weligii noqon doonin mid la iloobi doono. In the minds and will never be forgotten by our people. mudanayaal iyo marwooyin. Ladies and gentlemen, I come here waxaan maanta halkan u joogaa before yesterday to tell and to talk about my country's in aan ka hadlo horumarka dalkayga caqabadaha jira and the role our country iyo doorka uu dalkaygu ku leeyahay nabadgelyada xasiloonida iyo horumarka dhaqaale ee geyigayaga iyo dunida inteeda kale in our region and beyond. madaxweyne Biixi sidoo kale waxa uu ka hadlay muhiimadda jugraafi ahaaneed ee Somaliland iyo danaha ay la wadaagto dalalka ay isku fikirka yihiin. Somaliland geopolitical significance and shared interest. xaaladda ammaan ee Soomaaliya aad bay uga sii dartay. The security situation in Somalia has deteriorated dramatically. taasi oo kicisay in dib u eegis lagu sameeyo tixgelin siyaasadeedna la siiyo xiriirka tooska ah ee u dhaxeeya Somaliland iyo Mareykanka. The US and Somaliland. As you will recall,
sida aad xusuusataan maraykanku waxa uu dib u soo celiyey xiriirkiisii diblomaasiyadeed ee uu la lahaa Soomaaliya 2013 in 2013, guided by a vision of an empowered iyadoo lagu hagayo aragti ah in Muqdisho laga dhiso dawlad dhexe oo awood leh taasi oo keeni karta domestic unity, inay dhisto midnimo gudaha ah oo ka dhex dhacda qabaa'ilka disparate clans, hoos u dhigista degrade and defeat extremism, iyo jabinta argagixisanimada iyo dawlad ka difaaci karta dadkeeda iyo dariskeedaba aafada argagixisanimada iyo xasilooni darrada of terrorism and instability. That vision was unlikely not realized. maanta Today, even the most committed, empowering xitaa dalalkii aadka ugu heelanaa awood dhisidda dawladda Muqdisho ayaa ka aamin baxay mashruucaasi time and time again, mar iyo marar kaleba partners have beesha caalamku waxaa Muqdisho ay ku bixiyeen dhaqaale diplomatic resources dadaal diblomaasiyadeed iyo taageero ciidan and military resources iyadoo ay yar tahay with little show dadaalka ay muujiyeen with their dawladda Soomaaliya regrettable waxaa wax laga xumaada after nearly a decade of good intentions ku dhawaad 10 sano oo beesha caalamku niyad wanaag ballaaran ay u muujiyeen xukuumadda Muqdisho iyo kaalmada la taaban karo ee Mareykanka iyo beesha caalamkuba ay siiyeen dawladda Soomaaliya waxa dawladdaasi ay awoodi weyday inay sharciyadeeda iyo awoodeeduba ay dhaafaan Muqdisho waxaana ay weli tahay isha xasilooni darrada ee gobolkayaga. It remains the source of instability in our fragile sidoo region. kale madaxweyne Biixi waxa uu ka hadlay horumarka ugu weyn ee geeska Afrika Secondly, the major developments iyo Somaliland arrimaha ay kaga in the Horn of jirto Africa. waxaana uu sheegay in gobolka geeska Afrika uu yahay gobol muhiimad istiraatiijiyadeed leh Big importance. Somaliland ay tahay daris adag oo gobolka isu haysa In a difficult neighborhood, stability and taasina ay keentay in Somaliland loo aqoonsado inay tahay hanti dhinaca ammaanka ah iyo dhinaca muhiimadda istiraatiijiyadda labadaba ah oo lagu horumarin karo danaha dalalka ay wadaagaan qiyamka values. In recent years, sanadihii ugu dambeeyay xasiloonida geeska Afrika waxaa sidoo kale caqabad ku ahaa has been challenged colaadaha by gobolka conflicts in the region, iyo sidoo kale howlgallada joogtada ah ee kooxaha argagixisada ah involving operations of terrorist groups xasilooni la'aanta iyo cunayaridana waxa uga sii daray and food insecurity is further exacerbated by the drought, abaaraha xaaluska Desertification, ayaxa iyo saamaynta isbeddelka locust cimilada swarms, and climate change effects. sidoo kale marinka muhiimka ah ee Baabalmandab The Bab el-Mandeb Street ayaa waxa has uu la soo emerged isbaxay muhiimad as a vital istiraatiijiyadeed strategic oo link ah inuu isku in xidho maritime wadooyinka trade ganacsiga routes connecting badweynta the Atlantiga Atlantic Ocean iyo badda Mediterranean-ka and Mediterranean Sea to the Indian Ocean. iyo sidoo kale badweynta India Significantly. qayb muhiim ah oo ka mid ah saliidda adduunka ayaa soo marta Baabalmandab Through Bab el-Mandeb, iyo as sidoo well kale as ganacsiga considerable weyn trade ee u between dhexeeya Europe Yurub iyo and Aasiya Asia. Its importance is muhiimadda arrintaasi ay leedahayna waxay ka expansion muuqataa of foreign military bases ballaarinta saldhigyada ciidamada shisheeye iyo dhisidda ciidamada badda in cas the Red Sea, iyo sidoo kale as well as enhanced international xoojinta iskaashiga caalamiga ah ee la dagaalanka burcadbadeeda iyo sugidda amniga badda maritime security. tartanka quwadaha waaweyn Great powers ee competition Afrika ay ku tartamayaan in Africa will continue. ayaa sii socon doona mustaqbalka sida la filayo In the hase ahaatee Mareykanku waxaa waajib ku ah inuu caddeeyo The United States should make clear its support for taageerada uu governments hayo that dowladaha ku embrace dhaqma nidaamka dimuqraadiga ah democratic governance iyo xasiloonida and stability iyadoo ay ku in the jiraan midst of dowladahaasi oo la tacaalaya duruufo ay ku jiraan khataro stability, xasilooni darro iyo cadaadis dibadda ah instability, and external pressures. taas Mareykanku waa inuu ka garaabaa Major developments, madaxweyne Biixi sidoo kale waxa uu ka hadlay trade and shipping hub, casriyeynta dekedda Berbera the modernization of Berbera Port, furitaanka madaar cusub oo caalami ah a new international airport, iyo isku xidhka dalalka geeska Afrika of commercial corridors to inland neighbors and connecting the whole iyo marinada ganacsiga ee caalamiga ah ee badda cas kuwaas oo halbowlo u ah horumarka dhaqaale ee bariga Afrika linchpin
for renewed economic development in East Africa. bishii Juun ee ayna dhaaftay Last June, ayaa xukuumaddayada iyo DP World and DP World, waxaa xadhigga ay ka jareen terminaal cusub oo ah ka konteenarada dekedda Berbera a new container terminal at Berbera Airport. kaasi oo soo gabagabeeyey wejigii koowaad ee mashruuca ballaarinta dekedda Berbera ayaa uu sheegay madaxweyne Biixi. Expansion project. arrintan ayaa daba socotay This was followed in October with bishii Oktoobar iyadoo shirkadda DP World iyo hay-adda horumarinta maaliyadda ee Britain ay ku dhawaaqeen inay si wada jira lacag badan ugu maalgelinayaan kaabayaasha dhinaca tasiilaadka ee Afrika iyadoo laga bilaabayo casriyeynta dekedda Berbera. with further modernization of Berbera Port. maalgashiyadan These investments oo ay weheliyaan caqabadaha joogtada ah ee ka jira dalalka jaarka ah in neighboring ayaa Somaliland ka dhigaya make Somaliland marinka ugu the xasiloon most stable looguna kalsoonida badan yahay ee badeecadaha isaga kala goosha inta badan bariga Afrika iyo marinada maraakiibta waaweyn ee adduunku ay maraan. much of East Africa and the world's major shipping lines. isku soo wada duubo Taken together, saddexdan arrimood ee these kala ah developments, caqabadaha beesha caalamku ay ku wajahaysa geeska Afrika, muhiimadda istiraatiijiyadeed ee sii kordhaysa iyo suuragalnimada ay Berbera u leedahay abuuritaanka mishiin dhaqaale oo cusub oo mandaqada ku soo biira to create a new economic engine for the region, waxay ka dhigan tahay in Somaliland ay diyaar u tahay inay furo u noqoto amniga caalamka in global security iyo dhaqaalihiisaba. and economy. madaxweyne Biixi oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu soo hadal qaaday wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya Somaliland dialogue and Somalia. oo socday 10 sanadood. The Somaliland-Somalia dialogue wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya started with the London Conference of 23 waxa ay ka bilowdeen shirkii February London ee qabsoomay 2012. 23 February Article sanadkii 6. 2012. shirkaasi qodobadii ka soo baxay kiisa lixaad waxa uu sheegayaa stated that the conference recognized shirku waxa uu aqoonsaday in loo baahan yahay in beesha caalamku ay taageerto wada hadal kasta oo that Somaliland Somaliland and TFG, iyo dawladdii federaalka ahayd ee ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya its replacement, ama dawladaha kale ee bedeli doona ay galaan wada hadalladaasi oo laga yaabo inay ku heshiiyaan inay dhistaan hab ay uga heshiin karaan masiirkooda clarify mustaqbalka. the future relations between the two countries. Therefore, in order to clarify the future relations between the two countries, haddaba si loo caddeeyo xiriirka mustaqbalka ee labada dal waxaa loo baahan yahay in laga wada hadlo oo la xalliyo arrimaha udubdhaxaadka u ah khilaafka oo ah qadiyadda Somaliland. despite 9 rounds of talks, inkastoo 9 wareeg oo wada hadal ahi ay socdeen 22, sanadkii 2012 ilaa sanadkan 2022 haddana natiijada la filayo inay ka soo baxaan wada hadallada xallinta arrimaha udubdhaxaadka u ahaa khilaafka never materialized. marnaba ma hirgelin maadaama aanay jirin guul siyaasadeed oo la taaban karo oo la gaadhay muddadaasi. Agreements made on the peripheral political breakthrough, the limited agreements, heshiisyadii koobnaa ee laga gaadhay arrimaha farsamada never implemented lama dhaqan gelin iyadoo Soomaaliya ay ka laabatay dhammaan heshiisyadii la on galay. all the agreements. During these 10 years, 10 sano Soomaaliya waxa ay muujisay marnaba inaanay doonaynin in si buuxda loo wada hadlo oo si micno leh go'aamo looga gaadho arrimaha. in fact, dhab ahaantii Somalia Soomaaliya has used the dialogue waxay u adeegsatay wada hadallada inay ku hesho siyaasado lagu wiiqayo madax bannaanida and Somaliland stability to develop, including weaponizing international aid iyadoo Soomaaliya ay si khaldan u adeegsatay awoodeeda ah inay Somaliland ka cunaqabatayso deeqaha caalamiga ah iyo horumarinta dhaqaalaha. Since the dialogue between Somaliland and Somalia started, Somaliland believes Somaliland waxay aaminsan tahay in wada hadalladaasi lagu guuldaraystay ujeedadii laga lahaa. that the dialogue had failed to achieve its objective. The reasons sababaha guuldarrada keenay ayaa gabi ahaanba ka dhashay dadaalka Soomaaliya ay ugu jirto in lagu wiiqo hanaanka wada hadallada sida ka muuqda ficilada dawladda federaalka Soomaaliya ee hagardaamada ah
as demonstrated by its harmful actions. kuwaas oo ah inay si ula kaca u tixgelin waayeen heshiisyadii la galay. sidoo kale waxaa muuqata in wada hadalladu aanay daacad ka ahayn Even Soomaaliya, that dialogue is not an option. sida ka muuqata habdhaqankooda, niyad xumada iyo burburka joogtada ah ee wada hadallada ay ku hayaan. Bad faith and continuous sabotage of the dialogue. Somaliland believes that Somaliland waxay aaminsan tahay it's unfair in xaqdarro ay tahay inay ku sii jirto hanaanka wada hadallada oo ah kuwa lagu guuldaraystay that hadafkii laga has lahaa, failed to achieve its objectives and has no hope. isla markaasina aanay ka soo muuqanin wax rajo ah. It is that difficult way adag tahay in la qiyaaso in wixii lagu gaari waayo 10 sannadood oo wada hadalku ay socdeen in lagu gaari karo 1 sano ama 2 sano gudahood. in 10 years can be achieved in 1 or 2 years. Somaliland waxay aaminsan tahay Somaliland believes that there is no future in aanu wax mustaqbali ka soo muuqan ama aanu ku jirin sii socoshada wada hadallada Soomaaliya ay la leedahay, waxaana ay diyaar u tahay inay raacdo dhammaan dariiqooyinka kale ee ay ku kasban karto ama ay ku heli karto aqoonsi caalami ah. all available avenues for this international recognition. sida aan xusayba, Given above, Somaliland believes Somaliland waxay aaminsan tahay that the international community in beesha caalamka lafteeda ay waajib ku tahay to support inay taageerto aqoonsi raadinta Somaliland. of international recognition. mudnaanta wada shaqaynta dhow ee dhex maraysa Mareykanka iyo Somaliland. Closer US-Somaliland collaboration. dhab ahaantii, In fact, cutubkan xiriirka Mareykanka iyo Somaliland waxa uu soo bilaabmay waqti regional hore, security to democracy promotion laga soo bilaabo nabadgelyada gobolka ilaa dimuqraadiyadda. and values ujeedooyinka iyo qiyamka Mareykanku uu raadinayo waxa ay si buuxda u waafaqsan yihiin entire aragtida Somaliland. Somaliland's vision. Recent months have been waxaa bilihii u dambeeyay soo taraya oo soo kordhaya wada shaqaynta engagement and collaboration, including productive visits ay ka mid yihiin booqashooyinka wax ku oolka ah oo uu wasiirka amuuraha dibadda ee Somaliland ku tagay Washington, iyo booqashadii ay dhowaan Hargeysa ku yimaadeen wafdi ka socda Koongareeska Mareykanka, taasi oo gashay taariikhda Somaliland. a historic first for Somaliland. I am very heartened aad iyo aad ayaan ugu diirsaday horumarkan, by these developments. laakiin wada hadal toos ah iyo iskaashi joogto ah ayaa loo baahan yahay haddii si wax ku ool ah loo wajaho caqabadaha sii kordhaya, iyadoo si dhab ah loo horumarinayo ujeedooyinka amniga, dhaqaalaha iyo maamulka ee aynu wadaagno ee ka jira gobolka Geeska and governance objectives in the region. An important foundational element qodobada muhiimka ah ee aasaaska u ah iskaashigan ayaa ah saamaynta joogitaankooda diblomaasiyadeed ee dhowr waddan ay ku joogaan Hargeysa, iyadoo waddamada diblomaasiyad ahaanta u jooga Somaliland ay ka mid yihiin Ethiopia, Ingiriiska, Denmark, Kenya, Taiwan, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta. including Ethiopia, United Kingdom, Denmark, Kenya, Taiwan, Turkey, and the United Arab Emirates have diplomatic offices in our capital. Mareykankuna waa inuu safkooda ka mid noqdaa oo uu ku soo biiraa. And the United States of America should join their tasks. joogitaanka iyo booqashooyinka joogtada ah ee saraakiisha sarsare ee Mareykanka. With this presence and regular visits by senior US officials, waxay awood noo siin doontaa we will be able to cooperate inaanu si dhow uga wada shaqayno dhowr meelood oo muhiim ah, ayaa weli madaxweyne Biixi. in key areas. Let me briefly highlight few areas. aan si kooban u iftiimiyo dhowr meelood oo kartida Somaliland iyo taariikhdeeduba ay muujinayaan qiimaha ay leedahay Somaliland ee ay leeyihiin dalalka ay isku fikirka yihiin. As I noted earlier, Somaliland has successfully sida aan hore u xusay, Somaliland waxay ku guuleysatay inay ka hortagto khataro ku soo wajahan dalkeeda hooyo iyo burcadbadeed ka jira dhulbadeedka. our coast guards works ilaalada xeebaha iyagu waxay la shaqeeyaan dalalka ay iskaashadaan sida UK si ay u damaanad qaadaan badbaadada iyo amniga ganacsiga badda, gaar ahaan shixnadaha maraya badda cas we iyo gacanka work with cadmeed. foreign partners and international
waxaanan kala shaqaynaa waddamada aanu saaxiibka nahay iyo hay-adaha caalamiga ahba si loo yareeyo ama laysu hortaago ka ganacsiga sharci darrada ah iyo shabakadaha tahriibinta. illicit trafficking and smuggling networks. We have much to offer waxaananu in haynaa wax terms of badan oo aanu la community wadaagi based karno security dadweynaha adduunka successes marka la eego and guulaha closer dhinaca ammaanka cooperation with the United States iyo on these iskaashiga dhow ee efforts Maraykanka. would advance shared interest hase yeeshee iskaashiga dhow ee Maraykanka iyo Somaliland ee dadaalkan uu dhigaya ayaa horumarin doona danaha ay wadaagaan labada dhinac iyo xoojinta joogitaankiisa gobolka ee loo baahan yahay. strengthen its needed presence in the region. Similarly, sidoo kale our recent modernized kaabayaasha dhaqaalaha ee dhowaanahan la casriyeeyay gaar ahaan dekedda berbera waxa ay kaalin fiican kaga jirtaa kaalmaynta howlaha nabadgelyada iyo gargaarka and bani'aadanimada humanitarian aid, as well as ee expanded gobolka geeska Afrika, iyadoo sidoo kale fursad weyn ay u tahay ballaarinta fursadaha ganacsiga gobolka oo dhan. commercial opportunities throughout the region. waxaan soo dhoweynayaa We appreciate rabitaanka US dowladda Maraykanku ay ka interest leedahay in berbera and hope waxaanan rajaynayaa in wadaxaajoodyadu ay sii socon doonaan si loo sahamiyo ka faa'iidaysiga iyo horumarinta wixii dhabaha u xaadhi lahaa for trade, ganacsiga, investment, maalgashiga, iskaashiga amniga between the two countries. arrimaha dowladnimada On governance issue, ee nooceeda ah ee ka jirta gobolka geeska Afrika waxaana ay tilmaan u noqon doontaa dariskeeda iyo kuwa kale ee muwaadiniintoodu ay raadinayaan fursadaha ay kaga qaybgalayaan geedi socodka dimuqraadiyadda. it serves as a beacon for our neighbors and others whose citizens seek opportunities to engage in democratic process. Over the last 30 years, we have soddonkii built sane ee lasoo our dhaafay democratic norms waxaanu dhisnay habdhaqankeena dimuqraadiga ah iyo hay-adaha dawliga ah waxaanan xaqiijinay in ka badan 3 xil in lagula kala wareego hab nabadeed. three peaceful transition of power. waxaan la soconnaa We are aware that there are still certain issues inay weli jiraan arrimo gaar ah oo loo baahan yahay in wax laga qabto si loo xoojiyo hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinkeenna we are working on ways annagoo horumarinayna with our laws sharciga of ku saabsan dhinaca enhancing the role doorashooyinka of iyo women in in, kor loo qaado doorka in our haweenka political ee geedi process socodka and siyaasadda increasing iyo their kordhinta ka qaybgalkooda participation musharaxiin ahaan ee doorashooyinka mustaqbalka. candidates in future elections. Somaliland has much to offer. waxay haysataa wax badan oo ay la wadaagi karto dhiggeeda doonaya inay dhistaan hanaankooda dimuqraadiyeynta laga soo bilaabo cusboonaysiinta nidaamka diiwaangelinta codbixiyayaasha si loo xaqiijiyo hufnaanta hay-adaha doorashooyinka qaranka To ensuring the objectivity of national election authority. laga soo bilaabo maamulidda goobaha codbixinta iyo fududaynta shaqada kormeerayaasha doorashooyinka ee madaxa bannaan waxaan leenahay khibrad 20 sannadooda oo wax ku ool ah. We have 20 years of practical experience to share. waxaannu soo We would dhoweynaynaa welcome iskaashi ballaaran greater partnership with the United States government oo aanu la yeelanno dowladda Maraykanka iyo ururada bulshada rayidka ah si loo horumariyo xeerarka dimuqraadiyadda ee gobolka iyaga iyo meelaha kaleba iyo inaannu sii wanaajinno hay-adaha iyaga democratic gaarka ah. institutions. In a troubled region, gobolka ay dhibaatadu ka jirto ee geeska Afrika setbacks, waa mid dib u dhac weyn ku haya amaba ku sameynaya dowladnimada dimuqraadiga ah serious threats welina ay from ka taagan terrorists tahay and khataraha other halisa violent oo ay ku hayaan extremist kooxaha groups. argagixisada iyo kooxaha kale ee xag jirka ah. The successes of Somaliland. guulaha ay Somaliland gaadhay ma aha mid yar. Our friends in the United States understand this. saaxiibadayada Maraykanku way fahmayaan arrintan waxaanan uga mahad celinayaa taageeradooda joogtada ah. hadda Yet, tani waa bilow this is just the beginning. waan awoodnaa We can waana inaannu si dhow wada shaqayno haddii aan rajaynayno inaan la tartanno oo aan ka adkaanno with an overtake kuwa raadinaya xasilooni darrada gobolkayaga. instability and dependency on our region. There are so many practical and important waxaana jira tallaabooyin badan oo muhiim u ah waxaana jira tallaabooyin badan oo muhiim ah oo aan qaadi karno mid walba. Somaliland waxay u tusi doontaa saaxiibadayada iyo caalamkaba in hadafkayaga ugu dambeeya
ee aqoonsiga caalamiga ah lana siiyo of international recognition should be granted. si ay ula silmaan ummadaha kale Somaliland waxay awood u yeelan doontaa inay si wax ku ool ah uga qayb qaadato mustaqbalka waara ee barwaaqada geeska Afrika And prosperous future to the Horn of Africa. annagoo ka duulayna waayo aragnimadayada inaanu abuurno mabda'a xasiloonida gobolka ee ay muddada dheer dhibaatadu ka jirtay Unlock troubled region. The road ahead may be long jidkan waa uu dheeraan and karaa confident that laakiin waxaan kalsooni badan ku qabaa in Somaliland ay awood u yeelan doonto inay hesho taageerada Mareykanka marka aanu wadaagno ujeedooyin mid ah iyo geediga aanu u soconno halka aanu ku sii jeedno muddada dheer journey toward our long taasi oo ah deferred Somaliland oo xor ah free madax bannaan sovereign oo dimuqraadi ah democratic Somaliland country. Thank you very much. waad mahadsantihiin